dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hakisay dhammaan wixii wada xaajood iyo wada tashi ahaa ee ka dhaxeeyay hay'adaha jamhuuriyadda quruumaha ka dhaxaysa sida axadii toddobaadkan oo ku beegnay 25 bishan Oktoobar wareegto ku soo saaray wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland Xasan Cali Gaafadhi kaasi oo lagu socodsiiyay dhammaan hay'adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya dalka qaraarkan ayaa daba socday bayaan 17 isla bishan Oktoobar 2020 golaha wasiirada Soomaaliland soo saareen kaasi oo lagu cadeeyay in qaramada midoobay iyo dawladda aan iskeed isu maamulin ee Muqdisho kala saxadeen heshiis meel ka dhac ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiskan lidiya ku ah qarannimada Soomaaliland oo lagu kala saxaday magaalada Muqdisho 15 bishan Oktoobar ayaa ah mid faragelin ku ah arrimaha gudaha dalka Soomaaliland sida darteedna aanay suurtagal ahayn in qodobada ay UN-ta iyo Soomaaliya ku heshiiyeen ay ka shaqeeyaan gudaha Soomaaliland ama ay dhaqangal ka noqdaan waxaana qaraarkan ay soo saartay xukuumadda Soomaaliland ee ay ku joojisay wada shaqeynta hay'adaha qaramada midoobay aad soo dhaweeyay ururada wadaniga ah ee dalka ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland oo ka mid ah ururada u dhaqdhaqaaqa qadiyadda Soomaaliland ayaa war-saxaafadeedu soo saaray waxa uu ku yiri sida tari ururka xoojinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka duulaya ahmiyadda ay leedahay in dawladda lagu garab istaago difaaca qarannimada waxa uu si buuxda u taageerayaa go'aamada ay xukuumaddu ka qaadatay shaqoollada iyo xadgudubyada ay hay'adaha qaramada midoobay doonayaan inay ku mijaxaabiyaan madaxbannaanida dalkeena waxaanu ururku ku boorinayaa baa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi hay'adaha fulinta ee qaranku inay tallaabo adag ka qaadaan cod kasta oo isku dayda inay jabiso amarkaasi hay'adda u hogaansami weyda amarkaasina sharciga la mariyo ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland waxa kale oo xukuumadda iyo golayaasha baarlamaanka u soo jeedinaya in si heer qaran ah loo daraaseeyo saamaynta taban ee ay qarannimada iyo dawladnimada ku yeelanayso aqbalaadda banjirayaasha dalalka caalamku u soo dirsadaan waddanka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya ee waddankeena yimaada iyagoo oo ku magacaaban xafiisyada uga furan magaalada Muqdisho inaguna aynu ula baxno safiirada Soomaaliland iyo Soomaaliya magac bixintaasi oo ah mid aan sharci iyo heshiis siyaasadeed ku dhisnayn balse aynu inagu sabab aan cadayn ugu sameynay bridge ay inagu soo galaan oo ay danaha dalalkooda inooga dhex bulshadaan iyaga oo ku shaqeynaya siyaasadda ay ka leeyihiin Soomaaliya ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland wuxuu aaminsan yahay in qaranka Soomaaliland maanta marayo meel fiican oo uu isku filnaan karo dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaan kana koray waqtigii lagu gumaysan lahaa macaamilooyin faraguudkood ah oo lagu bahdilo caalamka iyo madaxbannaanida waddanka hase yeeshee qaranku waxa uu baahan yahay baa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi isagoo sii socda saaxiibo dhab ah oo ay isku dan iyo isku aragti yihiin Soomaaliland sida dawladda Taiwan Imaaraadka Carabta iyo saaxiibadeena kale ee dunida war-saxaafadeed kale waxa sidoo kale lagu yiri sidoo kale waxa uu qaranku u baahan yahay maalgashadayaal caalami ah oo aan u habranayn maamulka fashilmay ee xamar si lamida shirkadaha DP World Trafigura iyo kuwa kale ee ku soo hiranaya kheyraadka dehin ee jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland waxa uu golayaasha qaranka ugu baaqayaa in dib u eegis lagu sameeyo la shaqeynta danjirayaasha fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee ay dalalkooda u soo wakiisheen Soomaaliya haddana inagu aynu aqbalnay in hawlihii ay halkaasi ka qabanayeen ay ka fuliyaan Soomaaliland iyadoo aynu ognahay in Soomaaliya ay ka baxday heshiisyadii beesha caalamku lagu dhexdhexaadinaysay ee ahaa in aan la siyaasadeyn mashaariicda macaawinka ah maalgashiyada iyo wixii la xidhiidha arrimaha horumarka safiiradaasina waxa ka mid ah wakiilka midowga Yurub oo si ka baxsan diblomaasiyadda uga fuliya Soomaaliland howlgallo aan kala go' lahayn oo ay qaabkood khatar ku yihiin nabadgelyada iyo midnimada qaranka dhammaan safiirada dalalka Yurub safiirka Mareykanka iyo kuwa dalalka kale ee ay isku siyaasadda yihiin ee lugtayno haya dawladda xamar sidaas darteed ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland waxa uu ku talinayaa in hay'adaha dawladda oo ay ugu horeyso xukuumaddu ay qorshe degdeg ah iyo siyaasad cad ka soo saaraan arrintaasi iyadoo oo la eegayo masaalixda dalkeena habdhaqanada diblomaasiyadeed iyo xeerarka caalamiga ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi uu soo saaray ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland